بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعنا وناكسن كسو دوادا برنامج كيني دبكادل قيبتن waxaynu kaga hadli doonaa dalalka NATO oo iyagu ansixiyay sharci ka hortagga jinsiga dumarka loogu talagalay ama ku xadgudubka dumarka sharcigaasi waxa ansixiyay dalalka NATO oo 30 dal dabcan ka kooban isla markaasina ay ku jiraan awoodo waaweyn oo caalamka kamid ah haddaba tuhumo waxa jira soo baxaya oo la xidhiidha dalalka isla markaasi sharcigani uu sida tooska ugu socdo in kasto oo sharciga aan la magac dhabin wadan gaar ah isla markaasina aan wadan gaar ah lagu soo hadal qaadin haddana waxa jira shaki weyn oo ka dhalanaya go'aankaasi wadamada NATO ay ansixiyeen ama sharcigaasi wadamada NATO ay ansixiyeen oo la xidhiidha qaar kamid ah wadamada Afrika oo lagu eedeeyay inay ka dhaceen xadgudubyo dhinaca jinsiga haddaba waxaynu eegi doonaa go'aankaasi NATO iyo saameynta uu yeelan karo sidoo kale waxaynu eegi doonaa professor u dhashay wadanka Ethiopia oo isagana wareysi lala yeeshay digniinna ka soo saaray digniinna u jeediyay dhaahdee wadamadaasi NATO waxay la jooga saaxiibkay Jaamac Galad Jaamac go'aankan ay NATO ansixisay marka la fiiriyo NATO-da horta awood inta laag ba u leedahay adduunka meeshii uu xadgudub ka dhaco in ay maaragtay faragelin ku samayso بسم الله الرحمن الرحيم جود هم بهرت وسلام يا مركها هراء ومد الصوماليات ملك استيجوجان بوحنا الله السلام الله عليكم نورو ناتو هرت الديوان ناتو الدنيا وحكيت لي لبقى قاشان بورودو ناتي يوارس اللي يدهدو مركا ميل أي سجارة ناتو جاهو القشو يضم مجا عن ناتو وذا تاهي ما أي شرتو أو أنت بدل محيابها الجاهو القلوا وندي قرمة مدوبي أول شرتو أو اللي سجمع ركتاي تو إن بحيستي wixii waarsa la dhihi jiray ee midowgii Sovieti uu hogaamin jiray labada quudood baa dunida ku loolamay ama bari iyo galbeed ama waarsi iyo NATO oo kale labada gaashaan buurood baa la ahaa marka tii burburtay tani way iska joogtaa oo maxaan ku idhaahdaa to Mareykanka tunka ku wata oo maxaan ku idhaahdaa to inta badan maaragtay to isticmaala oo wuxuu kolba maaragtay to midowga Sovieti ama Ruushka iyo dalalka bariga la yiraahdo iyo inta badan maaragtay ku cadaadiyaa oo dalal badan oo yar oo maxaan ku idhaahdaa to midowgii Sovieti markuu kala yaacay waxa jira hadda dhulalkooda Yurubta barina ka tirsan maxaan ku idhaahdaa to ay ka cabsi qabaan qolada NATO la yiraahdo in Ruushku uu mar kale ku soo faafo oo uu dib u soo celiyo marka meelaha ugu badan ee hadda maaragtay awoodda ay saaraan waa dhinaca bariga Yurub weeyaan dalalka yar ee Estonia iyo ay ka mid ka yihiin oo maaragtay to Yurubta bari ka tirsan say dooniba ha noqoto NATO go'aan mayna soo saareen waxay ansixiyeen sharci wax la yiraahdo kulana isugu yimaadeen ma aqaan goor ay ansixiyeen marka sharcigan ama nidaamkan ayaa wuxuu yahay sharci ka hortagaya dalalka maaragtay to ay ka dhacaan xadgudubyada jinsiga la xidhiidha ama gabadh fallada dhinaca maaragtay kufsiga oo kale in maaragtay gobol ama dhul ama dal ama maxaan waxay dooniba ha noqoto oo ay ka dhacaan tacadiyo iyo xadgudubyo bini aadanimo oo qayb ay ka tahay waxaan la yiraahdo kufsiga oo kale sharci lagaga hortagayo oo ah kaasi oo ogolaanaya ama fasaxaya in maaragtay awood military lagu farageliyo lagu joojiyo waxaas ay ansixiyeen muxuu yahay toonka soo baxay tunka soo baxay waxa weeye xogayaha guud ee maaragtay ururkan lagu magacaabo ama gaashaanbuurtan NATO Janis Isfolter ayaa wuxuu aaday maxaan ku idhaahdaa wuxuu u socdaa ama uu tagayba dalka Mareykanka oo uu kala kulmayo madaxweynihiisa John Biden sharcigan ay ansixiyeen hadda maaragtay gaashaanbuurtan NATO dalalka ka tirsan Mareykankuna hormuudka u yahay in maaragtay loo helo taageero caalami ah oo dhaqaale iyo mid siyaasadeedba yaa muhiimad u tahay halkaas marka waxa jira maaragtay waxa meel kale oo hadda loo ansixiyay iyo dal kale oo hadda la leeyahay dhibaato ka taagan oo aad u sii xoogan ma jirto kaliya muhiimadda waxay tahay in hal wadan uu saaran yahay maaragtay toorabinka ama maaragtay to ay maxaan ku idhaahdaa to bahalkii wax lagu dhowri jiray ay caalamka oo dhan ku dhowrahayaan oo maxaan ku idhaahdaa to halkaas marka muhiimaddu ay tahay marka in taageero caalami ah loo helo meel marinta sharcigan ka talaaba qaadidiisa ayaa aad loogu badinayaa
in uu u tagay xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO magaalada Washington halkaasna wixii uu kala soo noqday waa la ogaan doonaa yaa marka loo aaneynaya in go'aankani uu ku socdo ama go'aankani wuxuu lid ku yahay saameyn ma ahe Ethiopia lid ku yahay si cad buu ugu yahay Ethiopia sababtoo ah dhawaaqyo badan oo caalami ah jiray oo soo yeeray qaramada midoobay intaasoo goor bay hadashay midowga Yurub waa hadleen Mareykanku waa hadlay cunaqabatayno iyo maartay xadidaado dhaqaale Mareykanku soo rogay dhawaan maxaan ku dhahdaa midowga Yurub ka tirsan iyo Canada iyo Ingiriiska ayaa iyaguna go'aamo ay soo saareen waxay dawladda Ethiopia ugu baaqeen si shuruud la'aan inay ku joojiso dagaalka ka socda waqooyiga dalkeeda deegaanka Tigreega meesha lagu magacaabo Ethiopia wixii dhan dhagaha ka fureysatay waxa kaliya ee maanta marka caalamka u yaala waa laba mid weeyaan inay ka aamusaan totally iyo in ay farageliyaan oo awood military ku muquuniyaan wax ka dhaxeeya male labada un bay mid taagan tahay sababtoo ah wax kasta oo kale oo la sameeyay Abiy Ahmed waa iska maartay iska dalxiisaya oo waxaan ku leeyahay isagoo dabaqa qowmeelaha wareegaya oo waxaan ku leeyahay uu dhex wareegaysanaya yaa kolba geed iska fuulaya marka ninkan geedaha fuula iyaga waxa weeye waa labada mid inay sameeyaan inay faraha ka qaadaan Ethiopia haysla basbaasho iyo inay awood military ku muquuniyaan marka muhiimadda waxay tahay in go'aamadan sharciyadan hadda la ansixiyay ee maartay xadgudubida jismiga looga hortagayo ujeedada laga leeyahay inay tahay in lagu banaysto gelitaanka dalka Ethiopia iyada oo lagu marmarsiinayo xadgudubyada maxaan ku ilaahdaayo bini aadanimada ka dhanka ah ee gabadfalada iyo ku maartay kufsigu ay numberka koowaad kaga jiraan maalinkiiba intaasoo qof oo intaasoo gabdhood baa la kufsadaa baa la leeyahay intaasoo yana la kufsadaa baa la leeyahay marka inay indhaha ka laabtaan iyo inay xoog fargeliyaan mooyaane wax kale oo maartay hadda la gudboon ma jiraan way sharcigan marka hadii loo helo taageero caalami ah oo isla markaasi dhaqaalihiina loo helo ma jiraan ciidamo NATO oo diyaarsan oo markaas laga adeejin karo meeshii loo baahan dabcan ciidamada NATO horta maxaan ku hadda meel yaalo oo u degan oo si gaar ah ugu degan oo way jiraan oo saldhigyo leeyihiin NATO iyagu ay leeyihiin baa jira ciidamadoodu marka laakiin ciidanka intii loo diyaarinayo yaa ka hawlgalaya yaanse ka hawlgalaynin iyo ciidanku shuruucda ay ku shaqeynayaan iyo waxyaalahaas yaa dibdhac keeni kara laakiin ciidan NATO oo meel degan oo ka hawlgala way jiraan way badan yihiin Turkiga saldhig weyn bay ku leeyihiin maxaan ku dhahdaa Jarmalka way ku leeyihiin meel badan bay ku leeyihiin oo maxaan ku dhahdaa magaca NATO ay ku joogaan hatta nuclear baa u yaala meeshan Turkiga madax nuclear ha u yaala NATO Mareykanku uu leeyahay laakiin magaca NATO wata marka way jiraan maxaan ku dhahdaa ciidamadaas oo ciidamada leeyahay laakiin shuruucdoodii ma aha waa la ogolaaday orda ma aha waxa laga yaabaa hadii la yiraahdo ciidan baa loo diray la isku waafaqo in golaha ammaanka laga meel mariyo midowga Afrika laga meel mariyo urur goboleedka iyaga naftirkooda ay meel mariyaan maxaan ku leeyahay dawladda Ethiopia lagu khasbo oo lagu cadaadiyo inay ogolaato ciidamadan in la keeno iyada naftirkeeda waa dawlad jirtay iska keen ma aha waa dawlad jirtay xoogna lagu geli karo hadii la xoog baa lagu geli inkaar baa dhici 100 milyan iyo 120 milyan oo cayd ah oo qaqaawan baa meesha joogta marka si waxaas oo dhan marka looga hortago waqti dheer bay qaadanaysaa laakiin waa qayb kamid ah cadaadisyada xoogan ee la saaray Ethiopia weeyaan way aqoonyahanka Ethiopia muxuu ka yiraahdaa niyo horta waxaan hadda waa wax iska cad weeyaan in maartay adduunku uusan aqbalaynin wax ka socda deegaanka Tigreega waa wax cad waxa kaliya ee maartay wax lagaga qaban karana in ay tahay faragelin military way adduunka u soo baxday laba ay kala qaad halka ka dhaxgalo raalli ah deegaanka Tigreega waxa ka dhacay adduunyadu ka qaylinaysa ma kufsiba mise wax walba weeyaan waa wax walba kala soocin maalinkii 500 oo gabdhood baa naagood baa la kufsadaa marka waa kufsi xasuuq ma wax laga waa isku ma wixii meesha 500 oo qof leeyahay waa lagu kufsanayaa ay suuragal tahay maalinka in lagu kufsado kaba soo qaadba maalinkii cali markii maalina 5 la kufsado maalina 100 la kufsado maalina 200 la kufsado maalina maxaa 30 la kufsado la isku geegeeyo waxay imaanaysaa maalinkii percentage-ka in dumarka ku dhaqan deegaanka Tigreega 20% in la kufsanayo oo kale ama 15% waa percentage aad u badan weeyaan teeda kale meesha 5 milyan oo qof baa ku nool 5 milyan oo qof gaajo u dhimanaysa hal qof oo Tigreeg ah oo wax uu cuna haysta kuma dhaqna deegaanka hal qof ah oo Tigreeg cadaabti adduunka ku jiraan shoorad baa ayr geesaha laga xidhay dabna waa lagu dhajiyay soo aan garan
halkaasay marka iyaga waxaan ku dhahay inta meesha la joogta yay isla karkarayaan TPLF iyadina way soo yaacday oo dadkii rag iyo dumarba TPLF bay u galeen wixii meeshan waxaan laga qaylinayana waa wixii laga hor istaagay inay TPLF u galaan si marka dadkan badbaado loogu helo gaajada iyo cudurrada iyo kufsiga iyo dilku ay isugu darmadeen laba mid weeyaan in xoog military lagu farageliyo iyo in faraha laga qaado marka waxaa soo baxday caalamku inuusan marka indhaha ka dhowran karin waxa meeshan ka socda aqoonyahanka Itoobiya iyaga oo marka la socda xaaladda meesha ka socota siyaasadda guud ee caalamka la socota go'doominta Itoobiya iyo cunaqabataynta lagu soo rogayna si ka dharagsan waxa u soo baxday tallaabada kaliya ee hadhay iyo ujeedada sharciga maaragtay loo ansixiyay iyo danta laga leeyahay inay tahay Itoobiya in awood ciidan lagu farageliyo sida iyadoo ay tahay marka professor ama doctor lagu magacaabo Alamayahu oo dadkan qurbaha jooga ah oo aan jeclay waliba Mareykanka inuu joogo ama aqaan Yurub meelahaas jooga waxaan ka arkay TV-ga ayaa waraysi uu bixiyay waxa si cad uu ugu sheegay in sharcigan lagu ay ansixiyeen gaashaanbuurta NATO uu yahay sharci halis ayna ka fiirsadaan sharcigan in loo adeegsado Itoobiya waxa loo adeegsanaya loo ansixiyay waa Itoobiya ma aha Congo iyo maxaan ku yiraahdaa in loo ansixiyay maxaan ku yiraahdaa iyo bar iyo ha waa meeshan waxa loo ansixiyay sharciga loo maartay qaadanayo ayaa wuxuu yahay Itoobiya sida daraadeed waxa uu ka digay halista ka iman karta sharcigan NATO ay ansixisay iyo qorshaha ka dambeeya ee ah in Itoobiya ciidan lagu maartay awood ciidan lagu farageliyo si dadkaas loo badbaadiyo marka muhiimadda waxay tahay sharcigan iyo waxan hadda NATO ay wado waa wax qoto dheer oo aad maartay u qoto dheer laakiin muhiimaddu waxay tahay ujeedada iyo danta laga leeyahay haddana xogayihii guud ee NATO uu u tagay maxaan ku yiraahdaa Washington oo u joogo waa in sidii arintan wax looga qaban lahaa waanan aaminsanahay aragti ahaan in maaragtay Mareykanku uu ka dambeeyo arintan Mareykanku inuu ka dambeeyo oo waxaan dhan uu soo abaabulay una doonayo in lagu khasbo Itoobiya inay ogolaato ciidamo nabad ilaalin in la geeyo meesha hadii kale si kale oo la yeelan kara ma jirto dawladda Itoobiya waa in lagu khasbo ay ogolaato hadiiba ay ogolaato Itoobiya in ciidamada nabad ilaalin la keeno gobolka Tigreega maxay ciidamadaas ka qaban karaan ciidamada huwanta meesha iyagu ku sugan dadka cunay waxa ciidankaas meesha laga soo saaray dadka cunayadii muhiimadu waa inta markuu nabad ilaalin ma TPLF dagaalamaya maya dadka ilaalinayaan qolyaha dagaalamayana xuduudiyo waxba loo sameeyo shuruuc baa loo sameeyaa bal meeshan dugaag baa isku cunay ma ogola in xuduud loo sameeyo TPLF inay gobolkooda qabsadaan bay rabaan maya waxna waa shuruucda caalamiga ah iyo wixii nabad ilaalina waxna waa wixii fiiri waxna waa wixii shabahad gobonnimadoon iyo xukun la dirir ah waxna waa xuquuqul insaan weey meeshan dadka shacabka la badbaadinaya nin qori wato inuu dadka dilin oo dadku gooba ay ku nabad galaan loo sameeyo yaa muhiimadu waa inta Itoobiya qoriyaha dhigma way dilaysaa TPLF waxa ma Itoobiya qoriyaha dhig iyo TPLF qoriyaha dhig midna lama laha laakiin qabkii dadkan lagu badbaadin lahaa baa laga shaqeynaya nabad ilaalintuna waa inta in la sameeyo goobo gaar ah sharcigan inay indhan nooca ay laga yaabo inay ku aragto Itoobiya way dhowraysaa ama indhawa weyn ku aragtaa ama yar ku aragtay sida waxna kama dhihi kartid okaasa Maxamed waa inta waxa diidina waxa tira ma hawlu taalo ma ahaba sababta Itoobiya waa nin qalan weeyaan nin qalan waa nin waxa nin buu ka boqol u talisay weey aad iyo aad ma santahay jawac galada iyo kaasi ahaa intaas ayaa ku soo gabagabeynaa barnaamijka tan iyo kulan dambe sidaas iyo fi amaan illah